وحسويدين محمي ذلك مدحوينه هوية وكأهان شيء كدبنا رئيس الوزراء دارود لقى شيء ولي لما أرك قيل أنت حتى باش دارود أي وضعان أو كأدن حقي نبا مقن سركي نبا مقن حكومة حقي أي كل حين مجل هرالله ما مقل جريني ورمحا ما أنت قلدن سيدي وحجران waxaan rabaa inaan idin tuso wax badan oo daaha ka gadaan ku qaso laakiin marka hore ay nusla fahano dalka madaxweynaha uu ka ahaan jiray ra'iisul wasaaraha daarad waa laga dhigi jiray yaa maqlay oo arkay qaylanaanta hadda ka baxaysa beelaha daarad waqtigii hore yaa maqlay yaa arkay waqtigii uu Abdiwali Gaas ka ahaan jiray ra'iisul wasaaraha dalka daarad raadinaya xaqeeni baa naga maqan oo yaa horay oo arkay markuu dalka ra'iisul wasaaraha ka ahaa Farmaajo دارت حقوق هذين وريا أركي وقت يا عبدولي إبراهيم يولكا وضلك رئيس الوزراء كها دارت حقوق هذين يا أرك ما أنتم حاقل ضم أو مديدا صوماليات أيضا أرك كريم وأندون يبقى إن ما أنت إذا تصوح الدهك كذا الكوشة ورم الريحان يا مجرتين أهلتوا الواقع وانتهي برنامج تالا waxba idinka qarin maayo qayladhaanta aad wadaan waa qayladhaan ku tarjuman hadalka aan maanta shaaca ka qaadi doono meeshay wuxuu ka qurunsan yihiin dadkayga Soomaaliyeed baan u iftiimi doonaa hadduu Allah idmo waa qodob xasaasi ah oo aan wax badan ku kashifi doono qayb ayayna ka tahay barnaamijkayga dalka hadal oo aad mar walba ka daawato Facebook page Abdullahi Balwan oo mar walba aan ku soo gudbiyo macluumaadada ugu dambeeya qodobada kale barnaamijka ku daawo doontana waxa kamid ah waxaan arkayaa dad hiraab nacaybku uu ku batay hiraab nacaybku wuxuu gaaray heer ay qarsan waayaan waxyaabaha qaarkood marka Allah yahay hiraab nacayb waxaan ula jeedaa dadka sida gaarka ah taargad uga dhiganaya beeraha abgaal iyo habargidib oo aad moodo in ay xitaa qarka u saaran yihiin inay dharka turtaan qayladhaantoodu qayladhaan way dhaaftay waxay isugu jiraan beelo Soomaaliyeed oo anigu ciise iyo sharaf aan u hayo xumaan aan ka qabo ama aan muujinayo ma jiro laakiin dadka ay ka dhasheen ama dadka ku abtirsada ee nacaybka habargidib iyo abgaal qaba ayaan iyaguna jawaab yar oo kooban halkan ka sii doonaa hadduu Allah idmo xukuumaddu berrito xada ayay hortagaysaa golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamza ayaa halkaas ka hadli doona golaha shacabka hortooda wuxuu soo gudbi doonaa mowqifka xukuumadda uu magacaabay kadibna codka kalsoonida ayaa loo qaadi doonaa golaha wasiirada ee magacaaban berrito hadduu Allah idmo rajadu intee bay maraysaa waa iftiimi doonaa dhammaantiin soo dhawaada muuqaalka share gareeya shartu waa dhiirigelinta barnaamijka muuqaalka markuu kusoo gaaro sii share gareeya hadduu Allah idmo walaalayaal Soomaaliya madaxweyne waxa way ka ahaan jireen beesha hawiye kadibna daarad ra'iisul wasaare ayuu qaadi jiray waa taariikh qoran oo soo jireena wali lama arag marka sanadkan oo kale sanad ay daarad ku qayla dhaaminayaan xilli ay dalka ra'iisul wasaare ka yihiin hore loo maqli jiray markuu ra'iisul wasaare ka yahay dalka Mareexaan daarad qaylinayo xaqooda raadinaya lama maqli jiray markuu majeerteen ra'iisul wasaare ka yahay dalka daarad qaylinayo oo xaqooda raadinaya lama arki jiray واي مركي اوغادين laga dhigay ra'iisul wasaare daaradkan maxay u qaylinayaan marka ilaa hore uma qayli jiro markuu dalka ra'iisul wasaare ka ahaa majabtay markuu ka ahaa Mareexaan ada marqaati ka ah cid kale marqaati u qabsan maayo adiga idaawanaya yaa maqlay daarad xaqooda raadinaya waqtigii majabtay ra'iisul wasaare ka ahaa dalkeena war yaa maqlay markuu Mareexaan dalkeena ra'iisul wasaare ka ahaa daarad xaqooda raadinaya war waa maxay qayladhaanta ra'iisul wasaare Xamza markii la doortay kadib dadkan ka soo yeeraysa waxaan rabaa inaan si dhab ah ula hadlo walaalaha sharafta badan ee beesha Mareexaan iyo majeerteen oo ciwaankaygu uu yahay saldhigga hadalka waxaan idin leeyahay xaq aad raadinaysaan oo idinka maqan ma jirto ummaddeena runta u sheegaa muhiima waxay u qayla dhaaminayaan Mareexaan iyo majeerteen waa ogaadeen maxaa ra'iisul wasaare looga dhigay wax kaloo xaqoo ka maqan ma laha golihii wasiirada sida loo qaybin jiraa loo qaybiyey weli ma arag qaabka hadda loo qaybiya qaab kaga wanaagsan markii hore marka xukuumadda xaq nooga maqan waa beentood wax ka jira malaha afka qayladhaanta loo qayladhaaminayo haddana ma aha barnaamij quseeya xukuumadda aan runta isku sheego majeerteen iyo Mareexaan waan runta isku sheego qayladiinu waa ogaadeen nacayb waa ogaadeen aad u diidantiin xilka ra'iisul wasaare maanta taariikhda qormaysa qof kasta oo hadalkayga maqlayo waxaan leeyahay xaqa maanta daarad ka maqan ee aan ka maqnaan jirin waqtigii dalka ra'iisul wasaare majeerteen uu ka ahaa muxuu yahay yaa ii sheeka حق ما أنت دارت كم عن كم ناجري وقت هو من ريحان ذلك الرئيس الوزراء كأهنجري محيته يا إيش كان
وردت كان مدحوين هوية وأهنجري دارودنا رئيس الوزراء كأهنجري قيلنا أن لما مخرجري ما كان أركتين رئيس الوزراء وقاعدين أيات قيلنا عمل إنسان مركو طلال ذلك هي حسن الشيخ محمود فرماجة كهم ذلك عمر عبد الرشيد رئيس الوزراء كأحد دارود قيلنا ياك دارود قيلنا دارود حقود هذين ياك ورمى الريحان يمجرتين جوحة أي وضان وجوحة وقاعدين محل رئيس الوزراء اللغني وأرن عن ربط إلى بلا أركتان حتى قدرنا هيدا وضيه قبان كلا وأديه كلا بلوان وأنتاس وآخر هدي لكن أنصحنا يقفل بوها وقادتها وأنا مهمة أغب اللارن أن كو افتيمينيو مريحان يمجرتين حد الرادين يحقوها مركي أركن رئيس الوزراء وقادينا انتا بلان وقتشبه ضدكي توضا بدن نحر حانا ويفهمين ujeedada hadalkayga golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa u daadegaya oo aan doonayo inaan dadka Soomaaliyeed u sheego haddaad ku faraxsanay ama aad qalbiga gashatay golaha wasiirada codka kalsoonida loo diidi doonaa horta berrito saacado yar oo kooban ayaa laga xiga waana la arki doonaa awoodda golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo golaha wasiiradaba isfahan ku meel wanaagsan oo maraya berrito guul aan wada rajeynayna wixii dhici doonana Ilaahay baa og laakiin guusha berrito muuqato waxay tahay codka kalsoonida golaha shacabka berriyo hortagayaan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre halka waxa ka qudbay doona ra'iisul wasaaraha wuxuuna sharaxi doonaa xukuumadda iyo mowqifkeeda kadibna codka kalsoonida ayaa loo qaadin doonaa hadda aniga rajada aan qabo waa boqolkiiba in ka badan 80 ilaa ansixi doono golaha wasiirada maalinta berrito ah wixii ku soo kordhana waxaan ku soo gudbi doonaa barnaamijyada soo socda hadduu Allah idmo waxaan arkayaa dad nacaybka hiraa qarsan waayay oo aad u nacabo Allah ilaahay markii la yiraahdo hiraab hogaamiye ah hiraab asaasiyeeyay hiraab ayaa dawladnimadii ku tumaraya waxa ii muuqanaya aniga marka nacayb abgaal iyo habargid loo qabo oo muuqata oo dadka Soomaaliyeedna in laga qariyo aynan wanaagsaneyn haddii adiga aad ka mid tahay dadka qaba nacaybka hiraab ilaahay subxaanahu wa tacaala baa dal iyo deegaan baba siiyey quwad iyo siyaasad awood dhan walba ah qof bilaadan oo ka qaadi karana ma jiro horta marka koowaad iimaanka Allah ku geliyo marka labaad hadal wax ma looga qaadi karaa hiraab iyo qayladaan maya waa ka afdheerihi siyaasadii kaaga horeeyaan baraha bulshadii kaaga sareeyaan qoraalay kaaga hawad badan yihiin nacayb kasto maanta u qabto habargid iyo abgaal wax kale oo leeyahay ma jiro af waxba uga maqaadi kartid madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dawladdiisuna rabbi subxaanahu wa tacaala ma garabtay ummadda Soomaaliyeedna waxa weeye inta wanaag jecel u baa ka badan dadka farakutiriska ah oo fariinta ugu tala galana waxa la yahay waxba yuusan hadal iyo waqti in kaga bixin meesha dawladdu way dhaqaaqday wayna soconaysaa waa dawlad maanta higsigeedu meel wanaagsan u marayo dhagta soo dhaweeyaan arrin dhac kaaga siiyay dawlad hiraab hogaaminayo guuldaraha ka soo dawlad hiraab uu hogaaminayo guuldaraha ka soo hana ka raadin meel qaldan hadallada qaar waxaan ku sheegayaa maanta hiraab gacmuhu is haystaa hiraab heshiiyey waa Soomaali heshiisay ana runtii sheegay kalsooni gola Soomaaliyeed ayay gacanta ku haystaa waxaan rabaa marka inaan fariin ugu dambaysa u diro hiraab iyo ogaadeen maanta wad u jeedaan nacaybka la idin qabo marqaatiyaad ka tihiin gaar ahaan ogaadeen waxaad u jeedaan daarad nacaybka idin qabo maanta barnaamijku la yimid حق أين هذه الجيل المركي رئيس الوزراء هاي مجرتني مريحان يهذبيان وأنا عيب لوقت بوجادين هرابو وجدان قيل دعم تدقي هوية إلى الشيء كبعيسة أو سكية يشيء ولا جودها هوية يبنان كيسبب ما أنت وجدان عيب كلا يدين قبائل كرة فريق بيدين تهاي أنا جو حنا هاي نقرب تاجن تردي ذات قارتين وحنا هاي نقرب تاجن دولة هراب waxaan haynin garab taagan ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaan haynin ogaadeen iyo hiraab garab taagan intan anigu taaganahay waxa weeye darbi badan oo adag ayaa horteeda imaan doona shacabka daawada barnaamijkayga difaaca hiraab iyo difaaca ogaadeen waa mid aan shalay u taagna maanta aan u istaagi doono wixii ku soo kordha isha ku hay barnaamijyada ka baxa page-kan Facebook Cabdullaahi Balwaan dagaal ba'an ayaan geli doonaa taageerayaasha page ku xiran dhammaantiin waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad share gareysaan shartu waa dhiirigelinta barnaamijka wax badan oo adag ayaa soo socda hadalkaygu markuu ku soo gaaro muuqaalkana aad sii share gareyso qayb baad ka qaadatay halganka wixii ku soo kordhana insha Allah isha ku hay page-ka Facebook Cabdullaahi Balwaan nabadgelyo